السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا عشر كيني لحاد كورسدنا سوشيال ميديا ماركتين. ما انتو حانكو برندونا سيدا لو سميو حيسينتا خيبتا لو يقانو awareness. ما انتو حان اسكو قادن دونا لبا عشر موقال كان وحوكو كوبنان دونا لبا عشر كواسو كلا لبا حيسين نا سمين دونو او objective اهان كلا دوان وحان سمين دونا awareness objective qaybta koowaad waxaa kaloo sameyn doonaa engagement labadaas oo laba cashir ayaa waxaan ka dhigi doonaa hal muuqaal ayaan maanta ka dhigi doonaa. Haddii aadan soo daawan cashirkan cashiradii ka horeeyay fadlan soo daawo si cashirkan oo micno kuugu lahaado. Waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto, muuqaalkan aad like gareyso si aan uga helno dhiirigelin. Haddii aan bilaawno cashirkeena waxaan joognaa ads manager keena ama meesha aan xayeysiinta ka sameynaynay. Maanta waxaan isticmaalaynaa ad account kan ayaan isticmaalaynaa si aan xayeysiin u sameyno. Waxyaabaha dhan waa soo baranay meel walbo, haddii tahay qaybtan kore iyo qaybahan kale dhammaan wax walbo waxa ku saabsan waa naqaanaa. Waxaan sameynaynaa maanta marka xayeysiin ayaan abuuri doonaa. Xayeysiintaas waxaan ka bilaabeynaa objective-ka koowaad وما حيسينتا كواد أسمينينو awareness. أوكي مركا ميشس كودو فانو وحالينا هاي continue أياد هنا continue مركا دهانو حيسين تمرول بقى حيسين سمينيسيد سدح شيء أيكا كوابان تاهيد. قيبتان كواد أولو يقانا campaign، قيبتان لبعض أولو يقانا adset، قيبتان السدحات أولو يقانا ad. سدح لاس مركا ويكالا كوريا. نمبر 1 marka kan uu hore waxa loo yaqaanaa campaign name kiyo kala ku jiro iyo waxa kale ku jiro budget ki. Sometimes waxa ku jiro AB test aad u baahan tahay ama hadii aad u baahan tahay inaad ka talo xayeysiin sameyso ayaa ku jirto. Ko marka campaign name keena waxa u bixinayna magac ay u baxsanaysaa. Waxa u bixina tusaale ka soo qabo ad test 1 oo kale. magacaas ayaa u baxsanay si aad magac ugu kala aqaanto. waxaa meeshaas ku qoran tahay campaign budget. AB test haddii aad tig saarno waxa waaye xayeysiinteena ayaa waxaan tijaabin doonaa sawirkii ama maaragtay muuqaal ama text ama audience ama placement ayaan waxaan ku sameynaynaa inaad test gareyno. So ka hadda ma u socono objective-keenana waxaa noo dooran awareness. ماشي waxa ku dooran meeshaas ayaa ka arkaysaa. meesha markii aan saarno on waxa haysanaa laba option. labadaas oo kala campaign budget keena laba qaab ayaa u bixi karnaa, daily budget iyo lifetime budget. waxa badana aniga ahaantii aan isticmaalaa daily aan isticmaalaa, laakiin haddii tusaale aad rabto lifetime budget waa isticmaali kartaa. lifetime budget asiga marmarka qaar waxyaabo ku fiican yahay oo jirtaa markii lacala u baahan tahay inaad sameyso scheduling. tusaale ina xayeysiintaada ay furnaato 2 saac subaxnimo ilaa 12 saac galabnimo hadaa u baahan tahay daily ma sameyn kartid macnaha. laakiin markaas haddii aad u baahan tahay tusaale xayeysiintaada waqti kooban inay socoto, lacala waxaa tahay maqaayad oo delivery sameyso, waxaana maqaayadaada la furaa 4 saac subaxnimo ilaa 4 saac habeenimo ayaa la furaa. dadka qaar oo kula soo hadlo 7 saac macna ma ku sameynayaan. markaasoo kale waxa ku fiican inaad isticmaasho lifetime budget. markaas kadibna waxaa sameynaysaa scheduling. waa schedule waa kana kale budget scheduling sameynaysaa waqtiyada. tusaale waxa leedahay habeenkii saqdi dhaxma rabo, laakiin anaga hadda waxaa isticmaalaynaa dailyna ma lahan scheduling. saas ula soo hadii lacala ku fikiraysay in aad scheduling aad sameyso waxaa isticmaalaysaa budgetka lifetime ka dhigaysaa. lifetime ayaa ka dhigi doontaa. soo marka anaga budgetkaas isticmaalaynaa $5 wixii aad rabtaad tabartaada. lacala ka soo qabo $3 ayaa ka dhignay. $3 marka xayeysiinta ka dhigtid maalin walba waxa jarmi doono $3. laakiin micnaheeda marmar qaar waxa laga yaabaa in aad aragto iyadoo jarmaysa lacagti oo wax yar ku darsan, tusaale 3.75. soo marka laakiin mar walba haddii ay socoto isbuuc ma ka badan doonto $21. taas loo soco. marka sometimes haddii maanta customer badan oo helo ama suuq uu fiican yahay
markaas wuxuu kuu samayn doonaa dad badan ayuu gaarsiin doonaa lacagta xoogaa ku darsamayso sometimesna hoos u imaan kartaa. Okay, qaybta koowaad waxaan ka sameynaa keliya budgetka iyo magacaas ayaa u bixinay, wax kale uguma baahnid. Okay, waxaa imaanaynaa kan labaad oo loo yaqaano adset. waa kan ugu badan oo waxyaabo badan aan ka bedeli doono. adset markaa imaano waxyaabo kale oo baxsan kartaa. tusaale qaybtaasoo kale waa iska tiri karnaa. waxaan dhihi karnaa ad test magacaas kaga qoran kartaa aa ku garanaysid. tusaale haddii waxa image yihiin wax qaas ah macnaa tusaale xayeysiin badan haddaad samaynaysid si aa xayeysiima u kala taqaano magacyo ayaa lagu qoraa. tusaale hadda lacala mid video ku waaye, mid image waaye, mid waxa waaye audiencegiisa waa tusaale specific audience u samaynaysaa, mid waxa u samaysa lacala audience weyn oo general audience ayaa ka dhigtay. marka waxyaa magaca waa u kala samayn kartaa. marka waxaan dhahaynaa adset namekeena magacaas ayaa u bixinay. meeshaan waa performance goalkeena ama waxa aan rabno. goalka marka tig aan furno intaas marka aad joogno awareness macnaha xayeysiin kasto saan ma ahayn, mid walba waxay leedahay performance goal oo qaas u ah. marka tusaale hadda haddii aan joogno xayeysiinteena awarenesska intaan ayaa leenahay. waxaa samayn kartaa maximize reach of ads. waxaa maximize gareyn kartaa waa goalka koowaad waaye. waxaa rabtaa dad badan inuu gaaro. wuxuu isku dayi doonaa Facebook inuu tuso dad badan intii ee suurtagal ay tahay. waxaa samayn kartaa kale maximize number of impression koo badi doonaa. marka targetkiisa wuxuu noqon doonaa impression laakiin reach ma noqon doono. marka haddii aad rabto muuqaalkaa dad badan inay daawadaan reach is okay. waxaa kaloo qaybta koowaad waa qaybta labadan. marka waxaa fiican kan koreeta fiican. haddii aad rabto wax la dhahayo through play in muuqaalada Facebooka dhexdooda aad kasoo dhex muuqato, waxaa isticmaalaysaa maximize through play. macnaha muuqaalkaaga 15 ilbiriqsi ka mid ah ayaa qofka lagu qasbi doonaa. 15kaas ayuu qofka si qasab u dhamaysan doonaa. marka haddii tusaale aad rabto wax yar muuqaal aad u qurux badan oo kooban oo information fiican shirkadaada ka bixinayo oo naqan karto dadka inay kugu bartaan, tusaale magaca meeshay ku taalo, waxay qabato, baahida ay xalinayso, waxaa ku fiican inaad isticmaasho maximize through play. marka haddii rabto videogaaga inuu keligiis kasoo muuqdo qaybta feedka ama statuska ama maaragtay qaybta videoga si oo micnaha madax bannaan, waxaa isticmaalaysaa maximize reach of ads. haddii aad u baahan tahay videogaaga inuu kasoo dhex muuqdo fiidiyoyada popularka ah ama fiidiyoyada dadka ay daawadaan, tusaale hadda waxaa rabtaa lacala caanaha xayeysiinaysaa kasoo qabo. caanahaas aa xayeysiinaysid waxaa kasoo dhigta fiidiyoyada dadka waaweyn ay daawadaan oo kale oo siyaasadda iyo waxyaabahaas oo hooyooyinka ama maaragtay aabayaasha oo kale inay daawadaan. waxay caawin doontaa magaca caanahaas qofka hadduu meel kale ku arko ama hadduu dukaan tago inuu soo qabto. marka hadda anaga waxaa iska isticmaalaynaa maximize reach of ads. haddii aa u baahan tahayne kan waa isticmaali kartaa, waa through play, waana muhiim markii awareness la joogo. waa midka ugu fiican oo la isticmaalo. labadaasba waa kanna waa la isticmaalaa sometimes, kanna waa okay. labadaas ayaa ka isticmaalayna marka aad joogno xayeysiinta awareness. marka hadda anaga kan koowaad isticmaalona waa isticmaali karnaa midka, kanna waa isticmaali karnaa, waa same, waa isku mid. okay, pageka meeshan waxaa kaga soo baxaayo pageka aad rabto. marka haddii pageka saxda kuu saana is okay. hadduu page kale yahayna pageki soo dooro, pageka saxda ah soo dooro. okay, hore ayaa usii soconaynaa. meeshaan wax kaloo muhiima kuma jiro. meeshaasoo kale waa caadi sidiisa ku daynaysaa 7 daygaas waa okay. waa sii soconay. waxaa imaanaynaa qaybta loo yaqaano budgetka. budgetkii schedule, tusaale waqti hadda wuxuu noo bilaabanaa 28 May. waqtigaa waxaa samayn kartaa startigaas, waqtigaas ayuu bilaabanayaa, waqti uu dhammaanayaa dooran kartaa. tusaale hadda haddii aan endi dhahno waqtigaa rabnaa dooranaynaa. hadda 28ku 3 maalin noo soconaa dhihi karnaa. waxaa dhihi karnaa 1 month iyo noo soconaa. marka haddii aad rabto waqtiga uu dhammaanayo waa dooran kartaa. haddii kaleetana waxaa ka dhigi kartaa optional oo adiga ayaa markii aad rabtid xayeysiintan aad fahmi weysid adiga ayaa iska stop gareynayo.
okay hore ayaa usii soconaynaa tusaale marka hadda waxaan sameynay waqtigaas waa iska dayna optional ayaa ka dhignay markaan rabna anaga xiraynaa waxaa ku soo haray qaybta labaadna waa audience shalay ayaa soo baranay marka badanaa wuxuu saarmaa maxaa la lahaa mid oo loo yaqaano hadda ay sameeyeen oo advantage plus audience lahaa macnaha badanaa asigaa wax kasta kuu sameynayo laakiin annaga inuu wax asiga noo suubiyo ma rabno annagaa waxayna wadanayno waxaa leenaha marka switch to original audience marka kan ayuu kugu recommend gareynaa laakiin annaga waxaan isticmaalaynaa badanaa waxaa fiican inaad isticmaasho dadka adi aa rabto waayo kan wuxuu sameynaa asiga ayaa kuu dooraayo dadka uu tusahayo wuxuu fiirinaa xayeysiintaada iyo qaabkeeda markaas kadib uu dad uu isleeyahay waa suurtagal oo asiga isleeyahay ayuu tusi doonaa marka waxaa noo fiican inaan isticmaalno use original audiencega anaga arabnaa isticmaalaynaa okay sida aan hadda waxaa joognaa create new audience waxaa sameyn karnaa mid anaga soo save gareynay waa isticmaali karnaa waxaa kaloo isticmaali karnaa waxa la dhahayo custom audience iyo lookalike audience oo haddii noo diyaarsan yihiin waaye okay hadda waxaas hadda ma noo diyaarsano okay waxaa sameynaynaa marka wadankii ayaan dooranaynaa waxaa rabno magaalada rabnaa dooranaynaa hadda tusaale kasoo qabo Mogadishu inaan dooranay kasoo qaad okay waxaa dooranaynaa waxaa sameyn kartaa tusaale magaaladaas aad dooratay inta kilomitir oo ku hareeraysan waa fiirin kartaa waxaa kaloo sameyn kartaa tusaale waxaan dooranay kasoo qaad Muqdisho ama Soomaaliya dooranay laakiin Soomaaliya markaa dooranay waxaa rabnaa magaalooyin qaar inaan ka saarno hadda Muqdisho dooratay waxaa sameyn kartaa exclude waxaa ka saaraysaa suuqa xoolaha kala lacala suuqa xoolaha marabtid macnaha kasoo qaad ama waxaa dhahaynaa wadajiro kala ka saaroonaa degmada wadajiro kala majidaa macnaha waa iska tusaale laakiin badanaa waxaa fiican Soomaaliya kala markii aad doorato magaalooyin qaar inaad ka saartid daartid oo kale okay ama lacala magaalo ayaa magaala joogtaa weyn Mareykanka oo kale magaaladaas waxaa rabtaa xaafad kamid ina xayeysiin sameysid xaafadaas qaas u dooran kartaa marka hadda anaga degmadaas oo kale mala tusi doono dadka degmadaas jooga oo 2 kilomitir ah ma arki doonaa xayeysiinteena waxa arki doono degmooyinka kale marka hadda anaga exclude ma rabno laakiin ina fahamtid muhiim waaye waxaa sameyn kartaa exclude waxaa kaloo sameyn kartaa include macnaha adoo dooratay wadan ayaa waxaa ka reebi kartaa magaalooyinna waa dooran kartaa okay haddii aan hore usii soconno age-ka waxaa rabnaa tusaale 18 ilaa inta aan rabna hadda lacala kasoo qaad ma rabno wax ka badan 38 genderka oo kale all waa dhihi kartaa midka aan rabna hadda anaga all uu tagnay okay meeshaan waxaa waaye waa detail targeting ama meeshii ay ku xusneen 3 shay oo ahaa demographic interest iyo behavior okay kasoo qaad hadda anaga waxaa xayeysiinayna waa dental tusaale waxaa dhahnaa teeth waxaa qaadanay interestigaas oo kale marka midkaas qaadanay waxyaabo badan aan caawin doono waxaan tegaynaa suggestionka waa rabnaa waxyaabahan oo dhan waa wax oo dental la xiriiro Colgate Oral B intaas marka waxaa fiirinaysaa meeshaas size-ka mar walba size-ka inuu aad u yaraado lama rabo ma la rabo inuu specific noqdo ma la rabo inuu broad noqdo waxaa la rabaa inuu dhexdaas ku haayo taas oo muhiim ah specific haddoo noqdo guduudu sheegaa aad u yartaa macnaha aad u yartaa ma garatay soo marka broadna ma rabno specific ma rabno dhexdaas inaan ku haynaa rabnaa cadadkana inuu bataa rabnaa at least inuu gaaro 500 600 meesha fiirinaysaa hadduu 200,000 uu yahay uu yar yahay soo marka waxyaabo kale ku daraysaa hadda anaga maadaama tusaale iska tahay halaas iskaga simeynaa beat waxyaabahaas oo kale waa ujeedaa hadda waa batay marka wax aad interested ku ah hadda badanaa hadda waxaa qaadanaa interest behavior ka dhigi kartaa tusaale waxaa dhahaynaa family oo kale ama parents oo kale waalidiin rabnaa tusaale waxaa dhahaynaa all parents oo kale lacala waxaa demography dadka waxaa dooranay oo waalidiinta oo kale lacala waa iska marka waxyaabo ku caawinaya waa hadda marka waxaa dooran kartaa hadda waa tusaale anaga waxyaa intaas doorana demography oo noogu jiraa behavior oo ku jiraa interest oo ku jiraa mar walba waxaa la rabaa inuu interestiga bataa la rabaa ma garatay okay waa inta koowaad waaye marka waxaa dhihi kartaa
maadaama waxaan aad samayso waqti aad gelisay si maalmo baad u gelin save aad dhihi kartaa marka aad save gareyso magaca u baxsanaysaa test1 oo kale aad u bixinaa anaga magacaas u baxsanay waxyaabahaas dhan waa noo save gareynaa berri markaa rabna marka si automatic ah u isticmaali doonaa that is muhiim waaye qaybtaan marka waxaa ka isticmaalnay hadaa dib u laabano waxaa la dhahaa performance goal waa bedeli karnaa waxaa kaloo sameynaa pageka waa muhiim waa inaad doorataa waxaa kaloo sameynaa waqtiga rabna ayaan indi sameyn karnaa waxaa ku soo haray audience ay imaanay audience-ga anaga arabno original audience aad dooranay audience-gaas sameynay waana save gareynay save ayuu noo galay okay qaybta labaad marka meesha ugu dambeyso waa kan waa placementigaas marka wuxuu saaran yahay advanced placement meesha badan aan iskaga deysis okay waa asiga wax macna ma ku sameynayso placementigaas meesha ku deyn karnaa haddii kale tan waxaan isticmaali karnaa manual placement marka dhahno ma rabno maaragtay kuwa kaleeto oo aan ahayn Facebook oo kale Instagram hadaa rabto okay Facebook Instagram bisa u baahanahay Facebook iyo Instagram waxaa rabnaa kaliya tusaale inaan isticmaalno Facebook feed waa rabnaa Instagram feed marketplace okay Facebook feed qaybta video waa u baahanahay Instagram explore waa qaadanay wixii aad rabin meesha aan dhigi kartaa history hadaa rabtid is okay history waa fiican yahay haddii aan rabno lacala streamkan oo kale lacala qaybta searchiga waa okay intaas hadda intii ugu saxan ugu saaraya marka badanaa kanoo kale ziyaada ah waa caadi marka inta badan markii la joogo placement waxaa iska fiican inaad iskaga doorato automatic waayo meel walba in uu gaaro is okay maadaama anaga audience-ga in aad soo sameysanay waayo haddii aad sii yareysid waxaa yaraanayo audience size-kaaga aad u sii yaraanayo okay qaybtaas intaas ayaa muhiimka ah wax kale ma sameynayno okay waxaa imaanay qaybta ugu dambeysa oo loo yaqaan qaybta adka marka tusaale waa meesha laga soo gelinayo video ama sawir waxay noqoto waa meesha laga soo gelinayo alla meeshaas waxa u baxsan video 1 waxa harta u bixin kartaa waa iska deyn kartaa okay waxa inoo dooran Facebook page kaas ayaa inoo dooran Instagram waa ku dari kartaa hadduu Instagram leeyahay hadduusan lahayn Instagram waa kaas waa iska deynaysaa hadda wuxuu joogaa maxaa la dhahaa single image ama single video soo marka maxaa la dhahaa saddexdaas haysataa waxaa ka dhigi kartaa crucial iyo collection single image iyo single video haddii ay ku deysid macnaha xayeysiintaada waxaa sameyn kartaa ama access u leedahay hal sawir ama hal video crucial hadaa u deyno waxaa waaye waa laba sawir ama laba muuqaal iyo wixii ka badan 10 xabo ayay noqotaa badanaa collection waxa waaye waa sawiro badan haddii aad u baahanta marka hadda anaga waxaa isticmaalaynaa single image iyo video ayaan isticmaalaynaa halkan waa meesha laga soo gelinayo mediaha waxaa dhahaynaa ad labadaas ayaa soo gelin kartaa image ama video hadda marka anaga waxaa rabnaa kasoo qabo video marka aad rabto intaas access waa haysataa waxaa isticmaali kartaa halkaa oo tusaale haddii oo meesha muuqaalo kugu jiraan video haddii as link waa soo gelin kartaa waxaa isticmaali kartaa pageka muuqaal ku jiro waa isticmaali kartaa anaga marka anaga soo gelinayno okay muuqaalkan ayaa isticmaalaynaa marka muuqaalka ayaa iska fiirinaysaa haddii uu ku saxan yahay iyo haddii kaleeto cabirka ugu fiican markii muuqaal la joogo waxaa waaye waa 4 to 5 ama maaragtay inuu dhir u badan yahay cabirkaas badan aan cabirka waxaa isticmaalaa 1200 times 1500 haddii ay sawir noqotan waxaa fiican 1080 by 1080 ama square inuu noqdo dooro 3000 by 3000 ha noqdo okay muuqaalkaas ayaa isticmaalaynaa next ayaa dhahnay okay muuqaalkaas markaan next dhahnay waxaa inoo soo galay maxaa la dhahaa muuqaalkii waa inoo soo galay sida u muuqato meesha dhan waa u jeedaa okay muuqaalkaas markuu meesha noo soo galay haddii aan edit ku laabano waxaa dhihi karnaa muuqaalku waa bedeli karnaa haddaan rabna muuqaalka edit gareyn karnaa muuqaalkii crop box samayn kartaa marka hadda meesha waxaa u socdaa thumbnail waxaa saari kartaa manual thumbnail sawirada oo asi kaaga soo xulay waa saari kartaa haddii kaleetana waxaa waaye waa upload gareyn kartaa sawir banaanka waa kala imaan kartaa marka haddii ay kuwaan ku qancin oo asi kuu soo xulay waxaa samayn kartaa thumbnail adiga aa soo diyaarsatay
hadda marka anaga kaas iska isticmaalaynaa maadaama iska cashir tahay. Okay, halkan waa meesha aad ku qoraysay maxaa la dhahaa qoraalkaas marka wax soo jiidasho leh inaad u fikirtaa la rabaa. qoraal qurxan oo gaaban oo soo jiidasho leh. saddexda ama labada sagar ugu horeyso ayaa ah kuwa ugu attentionka badan oo soo jiidashada badan. Marka kuwaas ayaa target ka saaraysaa. tusaale hadda anaga waxaa ku qornay qoraalkaas kooban ayaa ku qornay meeshaas. marka waxaa waa primary textiga ama qoraalka kor ka soo muuqanayo. marka qaybtan kaleeto iyadana waa headline waa qaybta hoos ka soo muuqanayso. waxaa harta ku qori kartaa qoraal yar oo soo jiidasho leh oo macquul inaad ku qortaa ku fiican. marka qoraalkii labadii qoraal baa diyaarinay. anaga hadda qoraalkaas ku qornay. description waa samayn kartaa laakiin hadda waa iska optional. meeshaan waxaa waa call to action. kan ujeedido qaybta hoos ka soo muuqanaysa call to action meesha lahaa. call to actionka marka haddii waxaa ka dhigi karnaa maadaama awareness ay xayeysiinta inay tahay waxaa inoo banaan 3 option. instant experience inaan ka dhigno oo qofka markuu ku dhufto inuu form aado, in website aan ka dhigno ama landing page qofka markii oo macnaha waxaan daawado inuu website keena aado, ama inaan ka dhigno message Instagram, Messenger iyo WhatsApp. so marka WhatsApp noo dooran yahay. haddii aad doorato website, linkiga website-ka ayaa gelin doontaa. haddii instant form ay noqotana waxaa abuuri doontaa instant form-ka ayaa soo create gareynaysaa. instant form cusub ayaa sameynaysaa. waxaasna waxaa ku baranaynaa cashirada soo socdo. hadda way noo dhamaatay. maxaa la dhahaa wax walba way noo dhameystiran yahay. 3 step oo awareness-ka waa soo wada sameynay. marka publish ayaa dhahaynaa. anagana waxaa dhahaynaa adjustment marabno inaa wax sameysay. anaga waxayna soo xalisanay publish ayaa dhahaynaa. xayeysiintaas waa live waaye. waxaa ka fiirinaysaa marka meeshii banaanka ayaa u laabanaynaa. waxyaabaha marka iska kansalno. hadda wuxuu joogaa adka. waxaa tegaynaa campaignka. mar walba campaignka ayaa la saaraa. inta daa saartid waxaa kusoo muuqanaya adset. ad hadaa saartidna waxyaabaha adka ayaa kusoo muuqanayo. soo marka campaign markaa imaanay maxaa la dhahaa away waa kana weli waxa waaye review ayuu mari doonaa. reviewgaas markuu maro kadibna live ayuu noqon doonaa. xayeysiintaada way socon doontaa. okay, saas waxaa uga baxnay xayeysiinteenii koowaad oo ah inaan sameyno awareness. okay, waxaan gelaynaa qaybta labaad oo ah engagement. ha tusaale traffic haddii aad saartid traffic idan waa samayn kartaa. traffic xayeysiin ahaan markaa samaysid WhatsApp aad dooran kartaa, call aad ka dhigi kartaa. waxayna noqon doontaa link click. wuxuu xisaabin doonaa hadhow macnaha marka ads manager-ka aad tagto xayeysiintaada objective-keedu waxay noqon doontaa click. marka traffic haddii aad u baahan tahay WhatsApp xayeysiintaada targetkeedu haduu yahay WhatsApp, waxaa ku fiican 2 shay inaad isticmaashid. traffic number 1 iyo sales. haddii aad WhatsApp caadi iska rabto xayeysiintaada labadaas okay waaye. haddii awareness aad u baahan tahayna waa awareness. okay, haddii aad lead rabto lead aad ka dhiganaysaa. midka hadda adi aad leedahay business-kan waa u habboon yahay ayaa sameynaysaa. marka traffic haddii aad samaysid iyadana waa sidii haddoo kale waa la mid. cashirka hadda aad soo qaadanayna waxba kuma kala duwana. okay, waxaan gelaynaa engagement markaa ku dhufano. engagement markaa imaado hadda wuxuu saaran yahay waxyaabo asi oo kuu recommend gareynaa. now marabna anaga manual anaga waxayna samaysanayno hooshana anaga wadanayno anaga jabhadeynayno. okay, magaca ayaa ka bedelaynaa test add to oo kale. hoosh sidii ku wadnaa. meeshaan waa budgetka waxaa ka dhiganay like $3 ama $1 iska dheh. okay, markii aan budgetkaas doorano qaybtaas wax kale ma ka sameynayno sidaa hore usoo sameynay. waxaa imaanaynaa qaybteena labaad. tusaale marka qaybta labaad markaa imaado oo sidaan ay noogu soo baxdo number 1 magaca ku sameyn kartaa ama magaca ku deyn kartaa. okay, waxaa imaanaynaa meesha ku qoran tahay conversion location. waxay hadda saaran tahay message. haddii xayeysiin engagement inaad samaysid aad rabtid ee message tahay messagekaas ku deyn doontaa. aad rabto WhatsApp ama Messenger in lagala soo xiriiro. haddii aad rabtona inaad page like oo kala sameyso page like ayaa ka dhigaysaa. okay, su'aal waxaa marka gaduudkaas soo baxay maxaa ku xalinaynaa? haddii aad message ku deyso oo gaduudkaas meesha kaaga soo baxay waxaa ku xalinaysaa. waxaa imaanaysaa haddii gaduudkaas oo kuu soo baxay aana message rabtid waxaa ku xalinaysaa qayb hoose ayaa tegaysaa.
qaybtaas tusaale hadda waxay isla dooran tahay waxyaabo badan. WhatsApp bisa dooranaysaa. WhatsApp bis markaa doorato oo haddii guduudka oo sii jiro oo meeshan guduudka kaaga soo baxdo ujeedaa xalkeeda waxaa waaye inaad sameyso performance goalka bedelaysaa. Performance goalka markii engagement iyo sales iyo link click ee tahay kulli waxaa ka dhigaysaa link click. haddii link click aad isticmaalaysaa waxaa ka dhigaysaa marka link click markaa ka dhigto errorkaas meesha uu ka baxay. marka errorkaas sababtuna waxaa waaye conversion ayaa ka dhigtay. conversion wuxuu u baahan yahay inaa waxyaabihii soo diyaarisid wixii u baahnaa dhan aad kusoo xirtid minaha pixelkii iyo wixii akhrisan lahaa dhan inay meesha ku jiraan. soo marka hadda haddii aad message isticmaalaysid sidaasaa ka dhigaysaa. hadda laakiin anaga waxaa rabnaa page like oo kale. waxaa isticmaalaynaa page like. waxaa isticmaali karnaa call. waxaa isticmaali karnaa website. waxaa isticmaali karnaa app. marka page like waxaa rabnaa Facebook page like. waxaa imaan engagement message waa ku dayn kartaa is okay. call waa ka dhigan kartaa. website waa ka dhigan kartaa. app waa ka dhigi kartaa. waxaa hadda laakiin rabnaa inaan isticmaalno Facebook page. okay Facebook page markaa ku dhufato waxyaabo badan oo hadaaya sidii uu u samaysnaa u isbedelaa. performance goalkeena marka waxaa waaye waa maximize number of page likes. targetkeena waxaa waaye like badan inaan helno pagekeena dad badan kusoo xirmaan. meeshan waxaa ka dooranaysaa pageka Facebook pagekaaga ayaa ka dooranaysaa. okay haddii aan hore usii socono waa meeshii timekaas okay haddaan rabna indi ayaa ka dhigi karnaa. waxaa imaanay location maxaa lahaa audienciga. meesha audienciga waxaa sameynaynaa originally audienciga anagaa rabna ayaa ka dhiganaynaa. marka tusaale waxaa fiican badan marka audienciya badan inaad soo save gareysid. audienciyaas mar walba inaad bedeshid xogaa waqti qaadanaya. audienciya oo 1 2 3 4 kala duwan oo hadba mid walba oo target gooni yahay inaad soo save gareysato aa isticmaasho. marka hadda anaga midkii hore taas ka isticmaalaynaa. marka aad isticmaasho automatically wixii hore aad soo gelinayna ayaa inoo soo baxaayo. qaybtaas halaas ugu bixinaa wax kale ma u baahnin. okay waxaa imaanaynaa meesha ugu dambeysay markaa imaano maxaa waaye waxaa isticmaali karnaa image ama video. togan waxaa isticmaalaynaa image ayaa isticmaalaynaa. imageka ayaa soo gelinaynaa. imageka adi aa rabto soo geli halkaa. tusaale hadda lacala ka soo qabo imagekan oo kale isticmaalaynaa. tusaale hadda aniga imagekaas isticmaalaynaa. markii aan ku dhufano meeshaas inooga soo baxayaa. okay qoraal ku qoraysaa marka waxaa rabto wixii hadba aad leedahay waa wax soo jiidasho ayaa ku qori doontaa. marka alaas ku qortidna waxaa sameynaysaa maxaa la dhahaa publish. marka hadda waxaa sameynaynaa page like ayaa sameynaynaa. publish ayaa leedahay. soo marka waxaa rajeynaa waa qaybta engagementiga. marka engagementigaas hadda aan isticmaalayna waa page like. waxaa ka dhigi karnay message. haddii aan message ka dhignana waxaa dooranay WhatsApp ama Messenger ama call wixii hadda aan rabno ayaan dooranay. qaybtaas waxaa waaye waa qaybtii engagementiga. marka hal shay hadaa fahantid waxa kaleeto waxaa waaye wax yar ay isbedelayaan. waxaa rajeynayaa inaan labadoodaba hadda aad samayn kartid. practicalna waa ku muhiim. adiga soo qaado sameyso pageki business managerki business accounti iyo xayeysiintii adiga sameey. adiga isku tijaabi. xitaa qasab maayo xayeysiinta inaad furto. marka ugu dambeysa publish marka aad joogto ayaa kasoo laaban kartaa. marka waxaa rajeynaa in aad cashirkan fahantay. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. wixii su'aal ah commentiga noogu reeb. like waa noo muhiim. asxaab badan oo digital marketing u baahan ayay gaarsiinaysaa. nagu caawi insha Allah. subscribe saar channelkeena YouTube. ku xirnaa Facebook pagekeena iyo baraha kale aan ku leenahay social media. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.